جعيلة ذا شاقي لقيستا قصة عجيبة نين وحا اللي أورنجر مقعيسا قيس ناقبو آذو جعل الليلة اللي أورنجر الليلة قبضا لكن بقر بعد الله يساقو لكن هو مسكين بقر كيبا إن انتي سيكو يري أبو واتقان قاعد هديتو له سوكو مدسو markaabay tir aabo ninka dhisaysid ana ku sheegay kaswaninkee qays baan jecelahay qayskii askartii ciidankii qays ma taqaan marra mid miskiin oo magaalada dawarsada aaba ma ado ina boqora qays jeclaan buu ku yiri magaceen baa biisay waxay tiri ninkan inaan ahayn anigu guurkiisa uma fadhiya ninka mooyaane maxabada beenbeenta iyo maxabada runtan qisada u soo qaatay dhageysta waa qiso macquulana marka la eego runtii oo aqli gal ah oo wax lagu fahamsiinay innaka gabadhii way weynaatay ninkiina uu iska waashay gabadhii waa loo diiday moogtahay xayraan buu noqday isaguna timir raanu la baxayo qasriga boqorku ku wareegaa isagoo markaa magaceega ku celcelinaya xataa maalin baa la arkay isagoo gidaarkii dhudhunkanaya darbigii markaasaa dadkii ku yidhaha warqaysow darbiga maxaa la dhunkano cuni darbigana gidaarkana dhunkanayo sii jeedkiisa layla ku ciyaarayso fadhida buu yidhi waa cajiib soo ma haddana maalin kalea la arkay ay isagoo dhudhunkanaya war aygana dunkanaysana muxuu yahay waaladii ma ay bay kula gashay wuxuu yidhi aqalka layla ay ku jirto ka soo baxay buu yidhi dhagaysta tu soo socotaa ka cajab badan gabadhii boqorkii si walba markuu dhinac walba uu kaga keenay wiilashii ay dhaleen madaxdu iska diiday ayaa boqorkii waxaa lagula teliyey marba hadday gabadhani waa tan weynaatee ninkana waalidiisu waali sii dheerba ma ahayn hala dabiibo oo timahana ha laga xiiro aqalka ha la soo geliyo waa nin iska qurux badanee ha la dhiso gabadhana ha loo dhiso dhallinyaradii magaalada markaa waxay ogaadeen inuu boqorku rabo inuu qays hadeetoola gabadhu iskaga dhiso boqorkii markaa ciidan buu diro wuxuu yidhi haddaba ninkii qays ahaa soo qaado aqalka soo geliya geed uu markaa hoos deganaa waxaa loogu yimiday 20 nin oo qays u wada eg dharkiisii bay wada xidheen waa dhallinyaradii sida dhallinyaradeenu imika kuwa gaalada isku ekeysiyaan madarkin kuwa kubadaha ciyaaro iyo kubaddu maxay tahay waa laastig hawo lagu shubay soo ma kuwa waxaa dheeldheele ee noloshoodiiba waxaa ku dhammaystay ayay dhallinyaradeenu qaarkood ay horumar moodaan isku ekeysiyaan gaal weliba gaalnimadiisu waxa u sii dheer waa shahawaani laastigaa yaree hawada laga buuxiyey ayuu wax isku mooday oo isku qiimaynaya markaasay dhallinyaradeenina ku daba lumeen waxaad ogaataa dhegayso almar'u maca man axabba yowma alqiyaama buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid nebiga oo yidhi nebi allow nin baa dad jecel laakiin darajadoodii camalkooga ma samayn karo ee nebi allow maxaad odhan lahayd markaa buu nebigu yihi cidda uu qofku jeclaaduu qiyaamaha la joogsanaya buuhi meel haddaad kuwa heesa aad jeclaato qiyaamaha yakaad la soo bixi haddaad kuwa kubadda ciyaara aad jeclaato qiyaamaha yakaad la soo bixi haddaad siyaasi jeclaato qiyaamaha siyaasigaad la soo bixi haddaad qabiili jeclaato qiyaamaha qabiili baad la soo bixi haddaad culammada rabbaaniyiinta jeclaatana yaka qiyaamahaad la soo bixi haddaad abibakar iyo cumar jeclaato abibakar iyo cumar baad qiyaamaha la soo bixi haddaad nebi maxamed jeclaatana muxamed calayhi salaatu wasalaam baad la soo bixi insha allah dhahada markaa dhallinyaradii maadaama ay maqleen boqorku wuxuu damacsan yahay inuu ninkii qaysee waallaa uu gabadhiisa iska siiyo isagoo kale markaa iska soo dhigeen halkii la filayay isaga in loogu tagaayo 20 nuuciisiyaa loogu yimiday markaasuu mid walba leeyahay orde qays waa aniga markaasaa la dawakhay waa isku dhar waa isku timo waa isku hadal waa isku gadh si midaad boqorkii baa loo noqdo la yidhi boqorow meeshii nin keliya ma fadhiye
labaatan baan helnay labaatan nin oo wada qays ku yahayna anagu garan mayno boqorkii baa inantii u yimid aabbo ninkii labaatan buu noqday waxay tirin anaa garan qayskii dhabta ahaa anigaa garanaye nin walba soo qaado qol ku xereeya qol baa lagu xerayn qol baa lagu xeraynayaa qol dhagaysta waad maqlaysaan insha allah markaasaa nin walba qolkaa lagu xereeya waxaa loo geynayaa nin xoog le oo seef wata ayaa loo geynayaa markaasaa su-aal baa la weydiin oo laleeyahay ma qays baa tahay markaasuu leeyahy ha qays baan ahay anaa qaysa waxa kale waa beenaalayaal markaasuu leeyahay haddaad qays tahay oo leyla aad jeceshahay waxay kaa tiri jirhkaaga badh ii soo goo bal aamusa waad qososheene kii horreeyaa loo yimid ma qays baa tahay ha qays baan ahay ile laba ninoo xoogla loo keeno sayf wadata ma og tahay oo askara waana aqalkii boqorka waa la soo xereeyay lama baxsan karo ma qays baa tahay haa gabadhii waxay ku tiri haddaad qayskii dhabta aad tahay jirhkaaga badhii soo goo bay ku tidhiye halkeenu goynaa noo dhiib han goyne markaasuu yihi wara qaysna mayhiye haddaan idsii daayo albaabkaabu ka baxay usalli ya xabiibi midba mar sidii loogu imanayo mid walba uu lahaa war qaysna mayhiye haddaan isii daaya ilaahay da taqaanaan oo halkaa uga baxayey ayaa isagii dhabta ahaa baa la dul yimid oo la dul taagay waa qays baa tahay markaasuu yihi insha allah ha anigaa qays kuwa kalena wallaahi waxay yihiin garan maayo meeshoon bay igu yimaadeen oo gabadha waad jeceshahay ha waan jecelahay iyadna way jeceshahay dee waxay kaa tiri jirhkaaga badh ii soo goo halkeen goynaa noo sheeg wuxuu yidhi ayada ku noqdo ku dhahada halkee baad jecesha oo kuu soo gooyaa ka dhahada buu yidhi markaa bay tiri qayskii dhabta waa kaa ii soo saara bay tiri maxabada kuwa hore maxay ahayd been maxabada ninkana nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa nabigeennii waa rasuulkeennii waan jecel lahay laakiin dhallinyaradeennu maanta ma john iyo boon bay u egyihiin mise moxamed bay u egyihiin bali sheega ya ma john iyo boon iyo tayson iyo shaydaan bay u egyihiin mise moxamed iyo cumar iyo abubakar bay u egyihiin tacsi ilaaha wa anta tudhiru xubahu hada lacamri fi lficaali badiicu low kaana xubuka saadiqan la aطactahu ina almuxiba liman yuxibu muiicu jacaylka aad sheeganayso eed leedahay ilaahay waan jecelahay oo waan aaminsanahay oo nebigayga moxamed calayhi salaatu wasalaam waan jecelahay oo waan aaminsanahay waxay jacayladu ay sax noqonaysaa waa markaad nebi maxamed aad ku dayato yahuud baa laga diiday maxabo keliya maxabo qawliya yahuud baa ilaahay ka diiday waxay idhahdeen ilaahay annaku waan jecel lahay markaasaa ilaahay soo dejiyey qul in kuntum tuxibuuna allaha faاtabicuunii yuxbibkum allahu wayakfir lakum dunuubakum wallahu gafuuru raxiim yaa muxamed waxaad ku tidhahdaa nimankaa yahuudeed haddaad tii kuwa ilaahay jecel waxaad ku tidhahdaa horta aniga i soo raaca ka dhig ilaahay jacayladiisa waxaa daliil burhaan ka ah itibaaca maxayga itibaaca nabiga sal alla alay wasalam fayaa macshara ashabaab dhallinyaraad u badan tihiin majliskan fadhiista adeer fadhiista insha allah dhaqdhaqaaqa joojiya kii soo socdana fadhiisiya ininkuna raggiina waaweyn khayr baa inaga muuqda diin jacayl baad maskiidka usoo camirteen laakiin jacaylka waxaan ku daraynaa camal falkii baan ku daraynaa insha allah dhahada insha allah dhahada nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam siiradiisaan baranaynaa suuraddiisii baan yeelanaynaa suuraddiisu waa maxay qaabkii nebigeennu u dhaqmayey baan u dhaqmaynaa siiradu waa dhaqankiisii qaabkuu u dhaqmaayey qaabkuu ula dhaqmaayey jaarkiisaan jaarka ula dhaqmaynaa qaabkuu reerihiisa ula dhaqmayen reeraheena ula dhaqmaynaa qaabkuu dhallinyarada ula dhaqmayen dhallinyaradeena ula dhaqmaynaa qaabkuu masaakiinta ula dhaqmayen masaakiinta ula dhaqmaynaa qaabkuu nebigu mujtamaca ula dhaqmaayey ayaan mujtamaca ula dhaqmaynaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam ma cadhoon jirin ma caytami jirin meel xun ma fadhiisan jirin
هذا الحنة كما هل جرين هدي وضد ودول مادنا صدح جرب النبي سلام جرين ضد كاس هدي نبي عيدو تمادو وحق هذا بقى كجت مادي الله اللان قرت النبي ما قالوا عينين ولكن النبي سجى قفك وده جسره يقابل عليه هدو النبي قف سلام ينا قعدت مديك بكو سلام جري هدو قف وحسين ينا قعدت مديك بكو سين جري هدو عيد وحكا قادنا ينا مديك توكا قادنا يي هدو عنتعنا ينا مديك توكو عنا يي هدو بيا عبا ينا مديك توكو عبا يي هدو مسكيتك سوقلا يو مديك توكو سوقلا يي هدو أقل جيس أوقلا ينا دعاء الله خرسو النبي قولها هدو در حنانا ينا حقوك بلا باي بدكت در قادة شدا در حنا شدا مدكتو كو بلا بجري در كمركو سيبي ينا بدحدو النبي كو سيبي جري كما مركو حدنا مدكتو يقلن جري مركو سيبي ينا بدحدو هو الرئيسين جري رسولك هدو تما اسكحيرا ينا حقوك بلا باي بدكت هنا يرى تمها إن لقى حيرة إن اللو دايب النبي قارك صلى الله عليه وسلم بركاب النبي عليه الصلاة والسلام كي يرابو يدي أبيه مي يقول يا والله يا ري أما تمها كولا حير أما تمها هو داب النبي كويلي عليه الصلاة والسلام أما تمها ها كولا حير أما تمها maalmahan waxaan arkay kuwa timo waaweyn timihii barigii hore afroogi yaan dhalinyarada ka arkay kuwaasaa la qaatayba iminka warba tima haddaad daynaysaan iska daaya xiirine ama wada xiira buu nabigu leeyahay ama wada daaya waa dhaqankiisi waa dhaqankii islaamka inaad nabi maxamed ku dayataa waa diin inaad gaala ku dayataana waa diin la-aan بدحدا وحبا كما عونين كما نعبين بدحدا وحا لوغو تلقلي زوليغا لوغو قلا بدحدا وحا لوغو تلقلي عوردا مركا لميدا يا ايا لوغو ميدا بدحدا وحا لوغو تلقلي سحرنا لا اسكا بيا بدحدا وحا لوغو تلقلي قندوفتا ايا لغا تفا بدحدا وحا لوغو تلقلي وحي ان وناكسنين وحي وناك ودن مديك نبي يقول استعمالها دو سيحانا يو حقو سيحانا مديكتا محا مديكتا الله سيحانا يا ودنها بني آدم بدحدو كويا لا دختر ردي با إمكا كولي واحد حقيقة اون هلي بيكوليين دادك مديكتا أصيحدا كعافمات بدن دادك بدحدا أصيحانا يا سببتها محي بدحدا ودنها بني آدم كأيا كويا لا هذا بدحدا الله سيحدو عليسكي ميزانكا كل عايا ودنها وحو قفكا سهلسو يحي إني قعاني لقتو أي بقتدو هذا يكون شيئا علمك ولكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام كن يأفر بقول السنة كهر أيو إنو شيئا يا أولي يحي هدي متكين هبينك أو صيحانا يو حقا ملك تهودي بصدام ورسولك يولي قال هذا الوقت أمريكا الزولي قالان بيسك كمان دقان ورقودهم بسمريان مركا حقا ويكا عاديين حقا دبانا ويكا أوريان دختر ردي جرمالك وقو قيمها بدنا الدوك أيا واحد دادك كولا تليان هوتيلادا إيا ميلاها دادكو أي كل ماني زوليادا لغا سميي دادك بيودك بيليهين وايو وحانو قاني دادك مسلمين تو إني كعاف ماد بدين كوا قالدا وليبا حنونا انت بدو الدبر كي عورada ku dhaca waxa la ogaaday gaalada inay ku dhacaan ku badan yihiin muslimiinta ku yar yihiin sababtu waa maxay da qofka muslimka maalintii imsa jarbo hoosti sameeyay diinta islaamku waa diin dadnimada ay dhisaysaa nadaafaday ku dhisaysaa iimaankay ku dhisaysaa akhlaaqday ku dhisaysaa lidalika dhalinyaradeena waxa leenahay wiilal iyo gabdhaba waxa ku talinaynaa نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هم جعلانو او دقنكيسي هديكيسي هنراعنو او دينتو انو ليمدي هم برنو إمام الشافعي رحمه الله
ayaa wuxuu lahaa dardaaran cajiiba maqaalo cajiiba wuxuu yidhi ninkii adduunyo doonayo cilmiga baro ninkii aakhiro doonayo cilmiga baro ninkii guul doonayo cilmiga baro ninkii sharaf doonayo cilmiga baro ninkii adduun iyo aakhiro doonayo cilmiga diinta baro limaada barashada diintaada aad barato waxaad ku noqonaysaa qof wanaagsan baad ku noqon diinta ayadaa ku dhisaysa lainaan diinteenna barano soo diyaar ma nihin insha allah dhahada iskuullada dee ha dhiganina anuni odhan maayo iskuulka iska dhigta oo kii maadiga iyo tacliinta adduunka iska baranayo o iska baro laakiin waxaad ogaataa tacliinta maadadee la baranayo kuwii bartay maqaaxyaha ma dhaafina maqaaxyahay fadhiyaan nin qur'aan bartay oo shaqo la-aana bal ii sheega ma haysaan nin qur-aankii bartay cilm qur-aanka bartay xaafid buu noqday mujawid mutqin culum alqur'aan uu ku darsado qiraa'aadkii buu bartay bal ninkaasoo bilaa shaqaa soo saara jaamacadda camuudeed sheegtaan sanadkii imsaa ka baxda cabdirashiid 2,000 waxaan 20 qof ahayn baa hay-adaha u shaqo tagtay hay-adaha wixii kale oo dhan waa kuwa maqaaxyaha fadhiya dariiq wada fadhiya mobile intaan leegun baa loo dhiibay muraayadna uu qaatowno adduunka la socdaa buu ku leeyahay halkaaba waqtigiisa oo dhan ku dilay war intaad mobile laguu dhiibeed muraayadaad kolba dhinac u rogrogayso ee gabdhaha dariiqa maraya indhahaad ku taagtaagayso orodoo beerahaaga falo oo dhulkaaga macdanta ku jirta la soo bax gaaladii cadcadayd baa magaalooyinka intay ka guureen ayay miyiga dib ugu noqdeen miyigii xoolay dhaqdaan ragga adduunka ugu dhaqaalaha badan leh beerana way fashaan xoolahana way dhaqdaan magaalana way iska naceen oo way lugayaan dad ka guurayn baa inaguna kusii guuraynaa waxbarashada maadiga anu ma inkirayo iska baro laakiin waxaad ogaataa ta diinta ka qiimo badan inan yar ayaa qaan gaadhay markaasay aabbaheed ku tidhi aabba kolley waad ii maqan tahay oo berigaa gabadhu markay qaan gaadho iyadu waxba soo egeegan jirine aabbaheedii iyo adeerkeedii iyo walaalkeedba usoo hasaawi jiray oo nin diin loo dabeecad fiican leh usoo egeegayeen deedna markaabay u keeni jireen markaa inantu waxay tidhi aabbo kolley waan qaan gaadho waad ii maqan taho waad ii soo hasaawaysaaye haddaad nin aad ii keenayso laba miduu ninkaasi ha ahaado ninaan weligii dhimanayn iyo nin weligii faqiira noqonayn gaar ma jira bal dee boorama ka soo saara ma jira weligii ninaan dhimanayn ma haysaan kuwaan weligii faqiir noqonayna gabadhaasi cilmi iyo xikmad badana odaygiibaa odayaasha u sheegay waxuu yidhahdee war annaku garan mayna bal waxa ujeeda iyada weydii markaabuu ku soo noqdo wuxuu ku yidhi aabba macaanay ii kaalayna taydiyey ninaan weligii dhimanayn ma jire iyo nin weligii faqiiraan noqonayn ma jire maxaad ujeeddaa bal ii sheeg waxay tihi ninka weligii aanan dhimanaynin waa wiilka 9 wiil oo walaalaha la dhashay hadduu isagu iga dhintana ka kalun bay guursan bay tegi reerka ka bixi maayo yacni ma dayacmayo weeyaan ile gabadha mar haddii la guursado 4 ilmood laga dhalo ninku ka dhinto wax sidaa u eegayaba uu yar yahay ma og tahay dhallinyarada kuwa freshka unbay egeegtaan ma garata waxay tidhi waa ninka 9 wiil oo walaalaa la dhashay hadduu isagu iga dhintana ka kale ku xigoon baa lai dumaali bay tidhi oo reerka ka bixi maayo ninka weligii faqiira noqonayna bay tidhi waa xaamilu lqur'aan waa ninka qur-aanka ilaahay xafidsan ee xaafidka faqiir ma noqdo bay tidhi bal gabadha caqli badnideeda ka yaaba ka waran caqli badnideeda si saxay u fikiraysa gabadhaas inagana teena mid hay-adaha ka shaqeeya hesha taasaa inoogu nolol fiican iminka waddankeenna heblaayo mid hay-adda ka shaqeeya baa guursado bishii $400 qaata oo lacagtan la siin halkee laga keena ma ogtahay adu lacagtan hay-aduhu ay keenayaan ay kugu addoonsanayaan ee dadkeena ilaahay ay kaga gooyeen ee dhulkeennii khayraadka ku jiray ay kaaga jeediyeen halkee laga keenay lacagta ma taqaanaa kaniisadaha ayaa laga soo qaadaa kaniisadahana lacagta ayaa siiya gabdhaha zinaysta ee buqaadda dembiga ay toddobaadkii ay galeen lacagta lagaga maydho weeyaan ee kaniisadda ay siiyaan
ayaa Afrika lagu soo caawiyaa. ilaahay han aamino oo dalkeena han aamino insha Allah dhahada yaa macshara shabaab dhageysta kuwii halkaa ka tahriibay ee wadanka ka yaacay labadaa bay ka ooyeen labadaas wixii ay filanayeen ma helin waxay ku soo noqdaan ma haystaan diintoodina halis bay ku jirtaa dadnimadoodii waa dhulkaaga aamin waana aaminada dhulkayga waa dhulkeena ma aaminteen هذا دول كنا هوسان و نعمة أنا هيسنا والله ما هيستان يكون دينتنا معنا هم برنو ودينتنا هكشغير دعوتها نبحنا صاديار مونا هي الله ينقوا عفاو وحي قفي قد عينا إلهي هيقع عفيو وحي وناق يا خيري سود أحمرنا يساق سود أحمري الله ينقوا ضاق بلا دنبقنا الله هداف دنبقوا والدينتنا الله هداف دينت الله إنه معنا مرلكنا الله شافي أوتاتكنا الله ونحرش أمن إيمانك الله إنه زيادي مسلمين تنميل جوان كربة صار الله كفيد الله كقاضي dad badan oo ducana ka dalbanaya jiro qaarkood ubadkii gaal ay ka qaadatay maantadan gabadh baa ila soo hadlayso lahayd ciyaalkaygi baa la iga qaatay iisoo alla barye ilaahay gaalada ha uga soo rido ilaahay ha uga soo rido inagana dalkeena khayraadka yaala allah ina tuso diinteena iyo dadnimadeena kuwa hoos u eega allah inaga dhigo sallallahu alayhi